inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay labada qoloba waxay naga aqbaleen xabad joojintaasna dadkii taladeeda lahaa iyagana waa la hadalay oo wadadii sidii uu sheegay islaamku ku soo jiraan waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa salaamta islaamka intay maqli doonta iyo inta madasha joogtaba salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib xaali xaajaba allah inoo suubiyo muraadkeennana allah sahla masaa'ibtana allahina ka heraa intaa kadib mahad ilaah baa iska leh innagoo dad islaama haddana maslaxad ka hadlayna inaynu isu nimaanno ilaahay inoo idmay alxamdulilah ilaahaasaa mahada u sugnaato isaga ayaan haddana ilaahaas mahaddaas leh baanu waxaanu ka baryaynaa wixii dhib ah oo jirta inuu naga dulqaado wixii maslaxadana uuna waafajiyo intaa haddaan ka gudbo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan dadka islaamka ah ama soomaaliyeed ama reer puntland uga tacsiyadaynayaa dhibaatadii maanta dhacday oo ilaahay xaggiis ay ka qadaraatay laakiin u dhacday si lama filaan ah oo inta ay ku dhacday iyo inta ay ka dhacday ayan ahayn intii ama ridi lahayd ama ay ku dhici lahayd dhibaatadaa dhacday oo dhimashada leh oo dhaawaca leh oo qaxa leh ayaan uga tacsiyadaynayaa dadkaasaan kor ku soo xusay oo ama islaamka ah ama soomaaliyeed ama reer puntland waxaan ilaah ka baryayaa wixii dhaawacmay allaha boogadhayo wixii dhintayna allaha u naxariisto wixii dhaqana haatan aan dhibigaarinna ilaahay ha ka badbaadsho dhibtaas waxa ay abuurtay iyo mid kaleba waxaan leeyahay dhibaatada dadka wada oo ama dhinaca dawladda ah ama dhinaca kale oo garabka kale ah dadka dhibtu ku dhacday ama dhintay ama dhaawacmay ama qaxay dadkii xilka loo hayey oo madaxda u ahayd ciidankuna ciidanka u ahaa oo loo igmaday inay badbaadiyaaniin wixii ayaga bannaanka ka ah oo cadowgooda ah ay ka badbaadiyaaniin weeye ciidanku dowladduna waxa weeye dadkan hadda maanta jooga iyo dalkan wixii madaxda u ahayd sidaa la adligeed maxay ku dhaceen lama yidhaahdaani maxay ku dhammaadeen baa la yidhaahdaa eriya intii maanta ahayd wadahadal baa socday kulamaa socday waro in isugu timaadda ku wada hadasha iyo arag in isugu timaadaba waxaan hadda idiin sheegaynaa haddii aanu arrintii soo gallay oo xabad joojin inaannu ka shaqayno aanu raadinnay waa nala ka aqbalay dowladdii waa naga aqbashay ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaatay xarumaheedii bay ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abbaartoodii tahay dadkaan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda
iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii oggolaato aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin qolyihii kale oo garabka kala ahaa ayaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadkaa reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay wax dambana ilaahayna aynu ka nabadgelayno innagana abbaarteennu tahay inaynu ilaalinno sidaas inaanu u sheegno dadka Soomaaliyeed ama reer Puntland in xabad joojintii ay hirgashay oo la isla qaatay oo ciidamadii kuwa waliba ay xirantoodii ay joogaaniin intaasaanu idiin sheegaynaa si wixii dhintay loo aasi lahaa wixii dhaawacmay loo boogadhayi lahaa wixii dhibah oo magaalada ka jiri lahaa ay magaaladu nabadgelyadeedii iyo ashxaarteedii ay ku soo noqotay wixii hadda laga bilaabo intii ka dambaysa haddii alla qadaro sida aan ilaahay ka rajaynayno dadkii waxgaradka ahaayo oo howlahaas ayna dhexsanayeenna aanu isla qaadannay in dadkii uu isdejiyo wixii tagay soo noqdaan wixii adeeganayay ay adeegtaaniin qof waliba uu dhibtii ay intaas insha allah xabaddiina ku joogsantay xalkiina loo gudbayo iyo wada hadalkii iyadoo aan xabadi jirin intaa inaanu idiin sheegno ama dadka Soomaaliyeed ama beesha caalamka ama reer Puntland inta ay qusayso in la ogaado in xabaddii la joojiyey xalkiina loo gudbayo waxaan kaloo ayagana baaq u diraynaa dadka caa'ilada ah oo dadkii waddankan labeentiisa ahaa oo madax dhaqameedada ahaa oo isimada ahaa oo maanta oo kale arrintan lahaa waxaanu ayagana iyagoo og qaybtoodna soo tagtay qaybtoodna waddada ku jirto waxaanu ayagana baaq ugu diraynaa oo farriin ugu gudbinaynaa inay yimaadaaniin si wax dambana ayan u dhicin xalkii iyo nabadgelyadiina loogu gudbo kaalintaasna ay tahay kaalintii maanta odayaasha ama madax dhaqameedka iyagana waxaanu leenahay idinkoo qaybtiinna soo tagtay qaybtiinna soo socoto waxaa idiin sheegaynaa inaynu isu nimaanno ayaanu idin sugaynaa maadaaba meesha hadda wax ka dhaceen ay caasimaddii tahay idinkana intaasaanu idiin sheegaynaa waxaanu iyadana idiin sheegaynaa baaq nabadeed oo dalka guudkiisa iyo gudihiisaaba waa ku baaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi sidaas waxaan leenahay in dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland ogaadaan waxaanu adkaynaynaa oo iyadana aanu u sheegaynaa shaqaaqooyin ka dhacay waxbaa sababay iskama imaan ama dhinaca dowladda ha ahaato ama dhinaca dadweynaha ha ahaato ama dhinaca ciidamada ha ahaatee waxaanu codsi u gudbinaynaa intii xal la gaarayo laysu imaanayo arrinta ay tahay naftaada u qaado naftaada ka qaad Soomaalidu ku mahmaahdo geedihi aad xadba daaqi lahayd isniin daaq wixii kasta oo shaqaaqooyinkan iyo dhibtaan ka asluxeen hadday dowladda tahay iyo hadday barlamaanka tahay iyo hadday ciidanka tahay iyo hadday dadweynaha tahayba
in waxaas maalinta ay ku habban tahay lala sugo si aan xabadda ma u dhicin si aan dhibaatada ma u imaan xabad wiil baa ku dhinta ee weel kuma dhasho aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaam salaan kadib waxaanu ku qabanaynaa kelmado habboonaaday haddii dhibi dhacday in dadka la gaarsiiyo ciddii ka walwalaysay meeshaan dhibtii ka dhacday iyo ciddii haatan hawsha tani ay dhexdooda ka dhacday hadday dowlad tahay iyo hadday qolyaha mucaaradkaa tahayba alakan waxaan uga diraynaa baaq nabadeed waxaana ilaahay mahaddiisa intii islaamku sheegay buu warku iska yahay labada qoloba waxay naga aqbaleen xabad joojintaasna dadkii taladeeda lahaa iyagana waa la hadallayoo waddadii sidii uu sheegay islaamku ku soo jiraan salaadiintii puntland weeye insha allahu iyagaa ka talin doona keliya halkan waxaanu ka boogaadinaynaa inay ku mahadsan yihiin labada qoloba haddayna aqbaleen inay labada qoloba isxakameeyaan xeryahooda ku ekaadaan naga warsugaan waxaa kale oo meesha ku jira waxaa la yidhi dhibtu haddaan la garaacin ma dhawaaqdo qoladan mucaaradkaa waa la wada ogyahay oo soomaaliya inteeda badani waa ka warhaysaa baarlamaanka furitaankiisa iyo ajandayaashiisa bay dood ka qabeen dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii baarlamaankii uu furmay saakay oo arrimihii ay iyagu dooda ka qabeen ku bilowdeen horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan laakiin fidmadu halkaasay ka kacday waxaanu leenahay qolada baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inoo joojiya nabad baa naas la nuuga leh waa la tashan doonaa hay-aduhu mid walba shaqadeeda waa qabsan doontaa haddii nabad la helo wax walba waa asluxayaan oo waa hagaagayaan laakiin aana qubtaba dabadoodaa la qabtaaye mar haddii nabaddii salka loo dhigay xabad joojin la yidhi wixii shaqo ahaa waa in la joojiyaa annaga waa in nala ka warsugaa qolo waliba muraadkeeda insha allah way gaari doontaa arrimaha aanu ka hadlaynaa kuwaa weeye dadka danaynayey ama arrinta tani ay walwalka ku haysayna waxaanu ugu bishaaraynaynaa caawa qolo waliba xeryahoodii bay joogaan annagayna naga warsugayaan arrintana nabad baa lagu soo dabaalay dadkuna way baqeenoo xabadihii iyo wixii haddii la maqlay lamaba adeegan magaaladu way kala xirxirnay magaaladu haynoo furanto nabadduna haynoo xasisho qolo waliba wixii ay shaqa oo ay leedahay cid u diidi doontaa ma jirto sidii dawladii u shaqayn jirtay shacabna ma garanaysaa ula tacaamuli jiray baa ilaahay idanka arrintu ku soo noqonaysaa laakiin waxaa la yidhi maxaad raganimo leedaho rag isku sin yacni cagaha in loo dhigay arrintii la joojiyo dhaqdhaqaaqii iyo shaqadiiba halkaa in la dhigo annagana nala ka warsugo haddii ilaahay idmo waxa aanu hadda u qabannay barays konfarenska waa sidaa waa idin salaamaynaa cidda joogta iyo cidda maqanba wixiina daawanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu